xildhibaan maxamed faarax oo ka mid ah mudanayaasha golaha gurtida Somaliland ayaa si kulul uga hadlay xadhiga sultaan qabiile oo ay dhawaan xukuumadda ku xidhay magaalada Berbera isagoo arrintaasi ku tilmaamay mid u baahan in lagu dhaqmo hanaan sharci oo cad si loo ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta iyo habsami socodka cadaaladda dalka xildhibaanku waxa uu carabka ku adkeeyay in xukuumaddu marka ay tallaabooyin noocan oo kala qaadayso ay lagama maarmaan tahay in dadka la xidhayo gaar ahaan madax dhaqameedka iyo salaadiinta loo maro waddo sharci ah oo waafaqsan dastuurka iyo nidaamka garsoorka dalka waxa uu sheegay in aanay habboonayn in dad lagu hayo saldhigyada iyada oo aan si rasmi ah loo shaacin sababta loo xidhay ama aan la horkeenin maxkamad awood u leh inay go'aan ka gaadho waxa uu sheegay in ilaalinta sharcigu ay tahay tiirka ugu weyn ee lagu sugi karo kalsoonida bulshada iyo xasiloonida dalka isaga oo xukuumadda ugu baaqay inay ka dheeraato tallaabooyin kasta oo abuuri kara dhaliilo iyo dareen bulsho oo aan wanaagsanayn garsoorku anigu in my opinion markan cabirayga ismilihi uu fiican yahay sabab badan baa jira waxaanu ku fiicnayn dad baa lagu hayaa saldhigyada saldhigu markuu 24 saacadood ayaan inta maxkamadda la keeno oo la yiraahdo wala xalaalaynayaa anu meel kaga qortay dad suuqa maaragay ayaa qofka halka lagu haynayaa oo meeshaas u jactadaya saldhigyadii cadaaladdu ka soo bilaabantaa garsoorkuna waa saldhigyadaas iyo wixii la midka iyo maxkamadaha maalmo dhawto rag la xidhay qofku dambi uu gali karaa oo la xidhi karaa laakiin waan maxkamad la keeno rag de maxaan ku raahdaa ay de koofidaysto ama mudsto xidhan oo aan maxkamad la keenin baa jiro aynu maqlaynay maxkamadda ama waxa ku hesho ama waxa ku weydiiyay xukuumaddu wax kula talin lahaa inaanay meesha loo soo maray in xukuumaddu iska awdo taana waan soo jeedin lahaa marka garsoorka anigu horta saldhigyadaas aan ku nacay dadkuna way la qabaan oo waan filayaa inay arrintaa de ka warhayaan dhanka kale xildhibaan maxamed faarax ayaa si weyn uga hadlay cabashada isa soo taraysa ee bulshada ee ka taagan kororka qiimaha leydhka isaga oo ku baaqay in golaha looga yeedho wasiirada wasaaradaha tamarta ganacsiga iyo maaliyadda si wax looga weydiiyo sababaha ka dambeeya kororkaasi iyo tallaabooyinka ay xukuumaddu ka qaadayso xildhibaanku waxa uu tilmaamay in shirkadda indhabirtu ay wax ka bedeshay qiimihii hore ee leydhka iyadoo oo kor qaaday qiimihii halka unug laga qaadi jiray oo ahaa eber dhibic 9 kana dhigtay eber dhibic 3 arrintaas oo ku tilmaamay culays dhaqaale oo cusub oo si toos ah u saameyn kara nolosha shacabka gaar ahaan qoysaska danyarta ah ee durba la tacaalaya duruufaha nololeed ee adag waxa uu xusay in xukuumaddu hore bulshada ugu sheegtay inay ku guuleysatay dhimista qiimaha leydhka arrintaas oo xilligan loo arkayay guul la taaban karo oo bulshada nafis u keentay balse hadda xaaladdu ay u muuqato mid ka baxday halkii hore loogu yaqaanay taasoo dhalisay walaac cusub waxa uu sheegay in haddii xal degdeg ah loo helin sare u kaca qiimaha tamarta iyo saameynta shidaalka ay taasi horseedi karto culaysyo dhaqaale oo sii saameeya nolosha shacabka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga dalka leydhkii xalayta waa la dalacay sida la socotaanba markaan waxaan soo jeedin lahaa goluhu inuu wasaaradda tamarta iyo wasaaradda ganacsiga iyo maaliyadda iyo loo yeedho ilan dadkii nafta hayse